dagaal culus oo dhinaca dhulka ayaa ka socda koonfurta Gaza ee magaalada Rafah iyadoo kooxaha Xamaas ay ridayaan gantaalo iyo hoobiyaal ay la beegsanayaan ciidamada Israa'iil iyo taangiyadooda oo ku sii qulqulaya magaalada Rafah. qiyaastii 80,000 oo Falastiiniyiin ayaa ka qaxay Rafah, kumanaan kalena waxay isku diyaarinayaan inay ka baxaan magaaladaasi, iyadoo la tilmaamayo in duulaan dhinaca dhulka ah oo aad u weyn ay Israa'iil halkaasi ku qaadayso. ciidamada Israa'iil ayaa la wareegay xuduudka Rafah iyagoo 3 cisho ee la soo dhaafay xayiray gelitaanka gargaarka Gaza, waxayna curyaamiyeen howlihii bini'aadanimo ee qaramada midoobay halkaasi ay ka waday sida ay sheegayaan hay'adaha gargaarka fidiya. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay haystaan dhammaan hubka ay uga baahan yihiin duulaanka dhulka ee Rafah kadib markii madaxweyne Joe Biden uu sheegay inaysan siin doonin hub lagu weeraro magaalada Rafah. ugu yaraan 34,904 qof ayaa lagu dilay Gaza, 78,514 kalena waa lagu dhaawacay weerarada Israa'iil ee bilowday 7 Oktoobar wixii ka dambeeyay. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka jawaabaya ama ka falcelinaya tallaabadii Mareykanku uu hubka uga joojiyay Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil kaligeed ay isdifaaci doonto aanay cidna u baahnayn. waxa uu sheegay in Israa'iil ay wax walba ku dagaalamayso ayna awoodo inay iska difaacdo Xamaas. Netanyahu ayaa wacad ku maray inay sii wadayaan howlgallada Gaza xilli hay'adaha gargaarka ay ka dayrinayaan xaaladda oo ay la'yihiin waddo gargaar loo sii marsiiyo dadka dhibaataysan ee reer Falastiin. hadalka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ku soo aadaya kadib markii madaxweyne Joe Biden uu sheegay in dalkiisu Israa'iil ka hakiyay ama ka joojiyay shixnad huba oo uu siin jiray sababo la xiriira baqdinta laga qabo waxa ka dhalan kara dagaalka ay Israa'iil ama duulaanka Israa'iil ay qorsheynayso inay ku qaado marinka Rafah. dhinaca kale, hogaamiyaha militariga ee Chad ee la yiraahdo Mohamed Debi ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay goor dhoweyd inuu ku guuleystay xilka madaxweynenimo kadib doorashooyin muran dhaliyay oo toddobaadkii hore ka dhacay dalka Chad. sida lagu shaaciyay natiijada hordhaca ee guddiga doorashada ee dalka Chad, General Debi ayaa helay 61.3% codadka la bixiyay, halka musharaxa ugu dhow oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas oo la yiraahdo Success Masra uu helay 18.53%. Master Masra ayaa dhankiisa sheegtay inuu isagu wareeggii hore ee doorashada ku guuleystay cod aqlabiyad leh, balse codadkii dadweynaha laga xaday. General Debi oo 40 jira waxaa talada saaray militariga dalkaas kadib geeridii aabihiis Idris Debi oo 2021 ku baxay gacanta ciidamada fallaagada ah oo uu dagaal kula jiray. markaas ayaa taariikhda ku galay inuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkaas u dhashay oo ku baxay gacanta koox fallaaga ah. dib u doorashada General Debi ayaa ka dhigan inuu 34 sano jirsaday xukunka Chad oo ay xukumayaan qoyska reer Debi. dalkan Chad ee ku yaala waqooyi bari ee qaaradda Afrika waxaase adkaan doonta sida dadweynaha dalkaas looga dhaadhicinayo in halkaas ay ka dhacday doorasho xor iyo xalaal ah, maadaama taladu ku urursanayd gacanta taliska guunka ah ee qoyska reer Debi. dhanka kalena, sirdoonka Ukraine ayaa sheegay inay ka hortageen shirqool Ruushku u dhigeen si ay u dilaan madaxweynaha Ukraine Zelensky iyo saraakiil sare oo reer Ukraine. waxaa la xiray 2 korneyl oo ka tirsanaa ururka ilaalada madaxda dowladda iyagoo u gudbiyey xog xasaasi ah shabakad ka tirsan sirdoonka la yiraahdo VSP ee Ruushka. waxayna sheegeen in shirqoolku ahaa in la qorto saraakiil military oo afduubta Zelensky kadibna dila. bartilmaameedka waxaa ku jiray taliyaha ciidamada Kyrilo Bodanov, kaas oo lagu talagalay in lagu dilo gantaal. sida qoraalka la soo saaray ku xusan, shirqoolka qaarajiska ayaa la rabay in warkiisa lagu soo bandhigo xafladda caleemasaarka madaxweyne Putin. qorshaha waxaa ku jiray sidoo kale inay basaasaan xogta
halka uu ku sugan yahay taliyaha kadibna lagu weeraro gantaallo ama dronis. mid ka mid a saraakiisha laga shakiyey ee la xiray ayaa soo iibsaday dronis iyo miinooyin, waana halka ugu weyn ee xogtaasi laga helay. dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Itoobiya ku eedeeyay inay daba socoto dabac soo jireena oo ay ku doonayso inay ku qaadato qaybo ka mid ah badda Soomaaliya. madaxweyne Xasan oo khudbad jeedinayay kaga hadlay arrimo dhowr ah oo dowladdiisa u yaala, wuxuuna si gaar ah farta ugu guday sababta ka dambaysa khilaafka ka dhex oogan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya. madaxweynaha oo ku dheeraaday taariikhda colaadeed ee u dhaxaysa labada dal ayaa carabka ku adkeeyey siday uga go'an tahay Soomaaliya in nabad lagu soo dabaalo gobolka. wuxuuse ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku eedeeyey in isagoo ka faa'iidaysanaya duruufta ay Soomaaliya ku jirto uu soo cusboonaysiiyey damac soo jiroona oo Itoobiya ay muddo ku taamisay inay bad ku hesho. madaxweyne Xasan Sheekh oo sii hadlaya ayaa Itoobiya ugu baaqay inay ka waantoodo damaca uga jira badda Soomaaliya, haddiise ay ku adkaysato isku daygeeda. wuxuu uga digay inuu ku dambayn doono meesha ay ku dambeeyeen damacyo hore oo uusan carabaabin. xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xumaaday tan iyo markii Addis Ababa heshiis afgarad ah ay la saxeexatay Somaliland.